xarunta dhalinyarada iyo culture-ka kala duwan ee magaalada Esbon Monoculturen Norden Kohtam Spike oo aan maanta soo gaarnay oo ku taala xarunta magaalada Esbo gaar ahaan centerka magaalada Esbo Kaskus waxaana markaasi kula kulannay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Cali xildhibaan Jimmy oo isagu ka tirsan xisbiga SLB Cabdiraxmaan ku soo dhawow idaacadda warsan marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo fursad u hesho inay daawadaan klibkan ugu dhawaaya Oriye Maxamed Muuse waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa dhawaaya Maxamed ku soo dhawaada magaalada Esbo oo ah magaalada laga soo doortay intaasoo jeer laga soo doortay ana xildhibaankooda oo meeshan maanta noogu timadeen halkan waxaa ku qoran luqad ahaan afinish ahaan waxaa ku qoran Esbo Monoculturen Norden Kohtam Spike oo aan kamid ahayd waxyaalaha aniga aan ballan qaaday inaan u sameeyo waa af Ingiriis waxaa lagu yiraahdaa Esbo Multicultural Youth Recreation waa meel la isugu yimaado ay dadka dhalinyarada macna free time ay ku qaataan intay wareegi lahaayeen ama dambiye meelahaas ku soo gali lahaayeen ayaan meeshan u furay waxayna furan tahay ilaa iyo 10 sano ay halkan furan tahay insha Allah intay carruurta halkan ku dhashay xataa ay ku soo qaangaari doonaan oo furnaan doonta duqaliina marka soo dhawaada waxaan maanta soo booqday kale adayga marka laga reebo wafdi kale oo ayagana ka yimideen muxuu ahaa Helsinki sportiga madaxda sportiga Finland iyo qaaradda Yurub waliba inala socdaan waxaan leeyahay marka soo dhawaada magaalada Esbo ku soo dhawaada waa jawi wanaagsan qorraxa jirta waa summer habeen waxaan joognaa hadda 3 saac bar habeenimo ama 9 bar habeenimo isla markaasna qorraxda way soo jeedaa 5 saac ay qorraxda dhacdaa marka welcome brothers soo dhawaada marka waxaad leedahay xaruntan waxaad ugu tala gasheen dhalinyarada soddonka ka yar waxaan ugu talagalnay dhalinyarada soddonka yar iyo dadka waaweyn haddii mataqaana ay guriga xoogaa boring ku dareemaan laftarkooda inay yimaadaan kama reebana ee waqtiga halkan ku qaataan waa arki doontaa halkan sida loo buuxo waa arki doontaa ileen waa meesha kaliya Esbo markii ugu horeysa la furay ilaa haddana meesha hana qaaday oo dadkii aad u jeclaystaan qof kastana albaabkaas uu furan yahay oo Soomaaliyeed ajnabi xataa way yimaadaan marka waa meel aad iyo aad loogu helay waxaad leedahay waa xaruntii ugu horeysay oo dhalinyaro loo furo waa xaruntii ugu horeysay marar badan aan soo qaadnay waxyaalaha ugu horeeyo waa xarunta ugu horeysay dabcan waxaan dhignaa xafladooyin oo lagu qabtaa bandhiga buugaagta oo kale aan ku qabanaa waxaan ku qabanaa sanad guuradii xorriyadda waddanka lagu qabtaa oo mar hore aan bilownay qabashadeeda waxyaalo badan lagu qabtaa meeshan munaasabado badan mana ka reebana munaasabad diiniyana kama reebano oo ayaga laftarkooda marmar aan ku qabanay sidoo kale dhammaan bulshada ku soo dooratay iyo kuwa aan ku soo dooranba guud ahaan maanta maxaad odhanaysaa waxaan leeyahay hadda muxuu ahaa intii dooratay iyo kulli waa isku wada mid dhammaan waxaan leeyahay hambalyo Soomaaliya hadda mar dhow ay qaadatay xorriyadeedii isla bishii waxaan ku jirnaa xorriyaddan ku jirnaa waa idin hambalyana dhammaan waxaan kaloo intaan Esbo fursaddan ugu faa'iideysanayaa bariyaan xoogaa dhalinyarada Esbo xoogaa mar ay dagaalamaan dhalinyarada dhexdooda dagaala dhexmara ragga dhalinyarada ah waxaan leeyahay marka dhalinyarooy waddankeena maahan ma aan waddan lagu dagaalamo dagaalka joojiya mataqaan waxaa ka fiican dagaalka nabada ka fiican inaad u jeesataan maxaa la yiraahdaa activity kala samaysaan dumarkii xataa ku soo biiro waxaa arkaysaa mar gabdho isdagaalay arkaysa oo xaafado kale ka imaanayo dhexdooda isdagaalayo annaga dhaqankaas waddankan siiba Esbo laguma ogeyn waxaas marka waxaan leeyahay kawaantooba dhalinyarooy kawaantooba diintiina dhaqankiina haysta waalidkiina adeeca waxyaalahaas xumaatadana ka jooga ayaan leeyahay marka dhammaantiin waa idin hambalyeynaa waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin imaada meeshaan waqti ku qaata halkan imaada library-ga imaada aniga 22 sano aan joogo qaybta multiculturalka aan joogan mas'uulka ka ahay buugaag badanaa jirta Soomaaliyeed imaada akhrista waqti ku qaata library-ga halkan imaada waddanka oo ka faa'iideysta intaas ayaan marka hadalka rabaa inuu ku soo gabagabo hadda mis leedahay buugaagta sidii hore ee Soomaalida buugta luqadda afka Soomaaliga ma la isticmaalaa mise waxaad leedahay wali dadku ma aysan baran runtii haddii aan ka hadlo sheekada halkan kuma dhamaanayso sababta annaga waxaan nahay oral society ma ahan dad Soomaalida wax aqriya
sababtoo ah sanad kastaba ilaa 20 sano ku dhawaad waxaan wadaa bandhigga buugaagta iyo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed sanadkan bisha afraad oo dhici lahaa laakiin cudurka corona viruska awgis dib aan ugu dhigay bisha 8 bisha dhalanaysa aan dhigi doonaa haddii alla yiraahdo oo ah Esbo Day macnaha ama Esbo Week waa Esbo markay u dabaaldegayso sanadka mar ayaa la yiraahdaa maalinta Esbo maalintaas ay dhici doontaa qoryaal ayaan casuumay oo ka imaan doona insha Allah dibadaha iyo qaar halkan localka ka imaana intaba marka Soomaaliya waxaan leeyahay library-ga bal imaada buugaagta waa lacag la'aan waa free waxaad haysan kartaan 5 bilood buuggii halka buug waxaad haysan kartaa 5 bilood haddii uu ka dhacana idin jadiidinayo wax mataqaanaa oo jabs aan idinku maanay xataa dee aad la soo daahdaan oo kale xataa waa mataqaanaa taleefon ku fiican ku jiidisaan imaada ka faa'iidaysta fursadan waa runtii wax laga xumaado adigii caruurtaada inaad ku wada hadashaan ama finish ama af kala duwan inaad adiga ilmaha ku wada hadashaan wax laga wanaagsan yahay weeye marka buugaagta imaada qaata buuggii sanadka hore aan anaga soo iibinay oo shelfka la dhigay kiya weli meesha yaallo marka waa adkaani haddana buug cusub haddana in lagu soo daro budget lacag la geliyo haddana kiya meesha yaallo kaas movement waa inuu sameeyaa buuggii sanadkiiba laga qaataa lagu soo celiyaa si buugaag kale cusub meesha ay u yimaadaan imaada ilmaha luqadiina bara oo la yiraahdo buugaagtaas meesha ka qaata buugaag children books ayaa yaal oo kala nooca buugaagta sheekooyinka sheeko xariira kuwa picture books ka yaallo audio books ka yaallo noocyo badan oo buugaag ah meesha yaalaan marka imaada library-ga kan kaliya maan library-ga Helsinki dadka degan Vanta all metropolitan cities areas dadka degan oo dhan inay buugaagta meesha ka qaataan sidaas aan ku boorin lahaa aad iyo aad baad xildhibaan Jimmy u maasantahay Abdullaahi Maxamuud Salxaan inuu lajan inuu wadbacada qaranka iyo qarankeennii hooyo ayaan markan ku soo dhaweynayaa oo isaguna ku jiray wafdigii soo gaaray magaalada Esbo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام كذب والله هذا مو فرح سنة ما أنت الآن سوق حسب كسكس وعند من منطقة عياش ساعدني الدعاء جني حديث بتوع قناة جيمي عيال بني رضي وفيلان كبرني مركا عادي هذا مو فرح سنة ماشي أنا كسر مركا عادي كذب ما سوق غيرنا إن شاء الله مرنا ما ناين مرنا أول ما أنا حبيبي هذا بقصد سوق بالعمتوا هذا مو فرح سنة هنا سوق اسمه كسكس aad baad aanka u maasantahay marka isboortka Yurub Master warsame السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب كواد إلها ما هذا سكله ما أنت نو فيديو نو سهلي إن نمانو مقالة إسبو وفيلان تاريخ بدن كله ضد لجناء ضد متقانا مسؤولين اللي بعناه يدقيهين أنت أسكبي محمد هذا سكله ورسن راديو أو ميديا كلية أتشاجن كرو قاعدة ومدة الصومالية ودك فيلان waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu bilowday xiriirkii ahaa in dhalinyarada iyo isboortiga iyo arrimaha bulshada aan iskala warqabno sidaas daraaddeedna maanta nagu nimid oo lajannadii waddankan Finland markii la yiraahdo magaca ku lahay maanta aan wada kulan aad iyo aad u qiimo badan aan wada qaadanay ee kamid ahaayeen Cabdi Fitik faaqid iyo nimankii mataqaanaa Cabdi Caagane iyo Fanax iyo aan hadda wada fadhinay waxaan leeyahay waa sidii u bilaabatay insha Allah tacaala aniga ka mas'uul ahaana ka madax ahaana maadaama aan ahay madaxii isboortiga ee waddanka Finland waxaa xil naga saaran in aan ka warqabno magaalooyinka iyo xaafadaha ku heeraarsan Helsinki waa ogtahay inta ugu badan Soomaalida waxay degan tahay waa magaalada Helsinki sidaas daraaddeed wax badan uma aan qaban karno oonan ahayn inaan mataqaanaa dadkii isboortiga magaca ku lahay inaan xiriirino inaan ayagii isku keenno in aan ka shaqeyno wanaagga sideedaba isboortiga waa isdhexgal waana wanaag sidaas daraaddeed walaalkeen Jimmy waxaan leenahay aad iyo aad ugu mahadsan tahay insha Allah tacaala programkii hadda wax yar uga hormaray kliibkaadii ahay waxaan aniga ka awoos ahaana aniga ku hadlaayo magaca bahda isboortiga waddanka Finland ururka Sombet oo walaalkeen jaamaca gudoomiye ka yahay waxaan kugu casuumnay hadduu Ilaahay ima sanadka soo socdo Somali Week wiigii Soomaalida ee waddanka Finland maadaama aad adiga taariikhdii aad soo bandhigto Soomaalida wiigii Soomaalida ee waddanka Finland ee ka dhici doona magaalada Helsinki ka isba ahaan ka mas'uul ahaan waa kugu casuumay fursadaas qaaligan waxay siiyay walaalkeen Maxamed Saraab iyo Warsan Medio message-kaasna waxaan u gudbinaa dhammaan bahda isboortiga ee waddanka magaalada isba degan
waxaa ka tihiin welcome programkaas aadi aadaan kaaga mahad celinaynaa si sharaf leh aad maanta noo soo dhaweyseen أنا وما سمعت هذا قال لي إن شاء الله عزومات هذا وأقبلني الله كراه النقد وقصوا قيم جلدنا إن شاء الله تعالى وحنقوم هذنا وليس ما أنت هذا وري محمد موسى هذه ورسن عن هذه ورسن إلى كون فينش عوده إلى كون هذه ورسن أما هن ولا هذه ورسن هذه أتاجن إلا يبرسماتك محمد ورسن ومحمد موسى وقتي أصلا سوق لنا فيلم واجب برسماتك marka magaaladan muddan joognaa wadankan runtii 30 sano nagu buuxsantay sana filayo marka waxa loo baahan in qoyar socod la noqdo macna in aad oo aragto wadooyinka waxa ku qoran speed limit marka qofka waa inuu lahaado liftirkiisa inuu lahaado limit inaad ku socotid speedka aad dhaaftid ma ahan hooskaaga inaad ku hormartid ma loo baahno waxa loo baahan low profile speed limitkaada yaray bulshada wax la qabso waxaan leeyahay dhamaan waa maadsantiin waraysiga naga qaaday mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada ayaan leeyahay dhamaan ummadda Soomaaliyeed kulligiin waxaan leeyahay mataqaanaa wadankan ilaahay nabad socon doona iyo horumar iyo barwaaq ayaan u rajaynaynaa dhamaan insha Allah taala waxaa kaloo ku qatima waxay tahay adinkana inaad noo imaataan oo magaalada Helsinki aan ugu soo dhaweyno la jannadiini iyo adinka intii magac isba kule inaad Helsinki noogu imaataan insha Allah taala imaanayna anagoo dhigayna been wadana insha Allah taala aan idinku imaan doonaa meesha ciyaartooyaan haynaa waxaan haynaa dhalinyaro legend ah dad sportiga Soomaaliya xulka qaranka Soomaaliya waagi barsamaadka ka tirsan ayaa halkan jooga marka ku soo qayb galayna hadda hal yiraahdo insha Allah taala aad iyo aad baad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen xildhibaan cabdiraxmaan jiimi iyo indiyashihii qaranka madbacadda qaranka barisamaadkii cabdulaahi maxamuud salxaan inuu iyo sidoo kale awees axmed warsame oo isaguna markaasi ah madaxa isboortiga qaaradda yurub ee soomaalida dalka finland inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa kulankeenni maanta iyo magaalada Espoo tani kulanteedaba waa maxamed muuse dhammaantiin bidile sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu